Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Masar. Channelka subscribe si videoga like gare, commentna xagga hoose ku qor. Dalka Masar ama Arab Republic of Egypt waa dal carbeed oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. waqooyi waxaa ka xideeya Mediterranean Sea, galbeedkana waxaa ka xideeya dalka Liibiya, koonfurna waxaa ka xideeya dalka Suudaan, barina waxaa ka xideeya badda Cas. cabirka dalka Masar waa 1,002,000 oo kiiloomitir oo square ah. xagga dalkoo dhanba laga dego 7%. tirada dadweynaha ku nool dalka Masar sanadkii 2018 wuxuu ahaa 1,400,000 oo qof. xagga dalka Masar uu soo gelayo kaalinta 13aad dalalka ugu tirada badan dadka ku nool. xagga kale, dadweynuhu waxay ku nool yihiin inta webiga Nile-ka loo yaqaano, inta kale dhulka ka soo hadhayna waa Sahara. caasimadda dalka Masar waxaa loo yaqaanaa Alqaahira ama Cairo. diinta dalka Masar siduu sheegayo dastuurka Masar, diinta rasmiga ee dalka waa Islaamka. xaggay ku nool yihiin tiro dadweyne oo Kiristan ah iyo tiro aad u yar oo Yuhuud ah. xagga dalka Muslimka ay ku nool dalka Masar 90% ay yihiin dadka Kiristanka ama aqbaadda loo yaqaano 9%. xagga Yuhuuduna 1%. luqadda rasmiga ama afka dalka Masar waa afka Carbeed. xagga lacagta lagu isticmaalo dalka Masar oo loo yaqaano Pound Egypt ama Jineh Masri. madaxweynaha dalka Masar magaciisu waa Cabdilfataax Asiisi. dhaqaalaha dalka Masar aad ayuu u sareeyaa xagga loo arko dalalka ku nool bariga dhexe. xaggu dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay wax soo saarid, beeritaan iyo dalxiis. dalka Masar wuxuu soo saaraa shidaalka iyo gaasta. xagga dhinaca beerahana geedka loo yaqaano cudbiga. waxbarashada dalka Masar waa bilaash da'da u dhaxaysa 6 jir ilaa 14 jir. dalka Masar waxaa ka dhisan iskuulo fara badan iyo jaamacadooyin fara badan. xagga jaamacadda ugu weyn ee diinta lagu barto qaaradda Afrika ee Masar ku taalo oo loo yaqaano Al-Azhar. ciidamada qalabka sida ama militariga ee dalka Masar waxay soo galaan kaalinta 10aad dalalka ugu xooga waaweyn xagga ciidamada militariga. dhinaca kale iyo caafimaadka, dalka Masar aad ayuu caafimaadka u wanaagsan yahay. xagga cudurrada ugu waaweyn ee dalka ka jira cudurka Jaundice-ka iyo cudurka loo yaqaano malaariyada ama kaneecada. dalka Masar waa xadaarad soo jirtay 7,000 oo sannadood ka hor. waxaa loo yaqaanaa xadaaradda webiga Nile-ka. diinta Islaamka dalka Masar wuxuu soo gaadhay waqtigii Cumar ibn Khataab. dalka Masar waa xubin ka mid ah jaamacadda Carbeed iyo midowda Afrika iyo qaramada midoobay. dalka Masar jumhuuriyad wuxuu noqday markii boqorkii loo yaqaanay Faaruq laga qaaday xilka 1953. kadibna waxaa ku fadhiistay kursiga madaxweynihii hore loo yaqaanay Jamaal Cabdinaasir. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo qiimo leh.
channelka subscribe sii, videoga like garee, commentna xagga hoose ku qor.